war degdeg ah maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay la wareegeen magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay dawladda Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay ay ciidamo ku daabuleysay wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay iyo khasaaraha halka ka dhacay baan barnaamijkan ku soo koobaya muuqaalkan la gareeso meel dheer u gaaro xogtaan dad qof walba u baahan oo share garay channelkana ku soo biir qoraalka ka soo baxay Jubbaland ku bilaabaya iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay wararka aanu helayno ilaa maanta xiriir kala duwan oo aynu la sameeynay dad Raaskambooni ku sugan dawlad goboleedka Jubbaland ayaa guul weyn ka sheegatay dagaal saaka ay ciidamadu la galeen waa ciidamadeeda kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ee dhawaan la geeyay aaga deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose Jubbaland ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay sheegtay in dagaalkaasi ay soo qaadeen ciidamada dawladda Soomaaliya balse ay ka hortageen daraawiishta sida ay hadalku u dhigtay sidoo kale Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in jab xooggan ay gaarsiisay ciidamada federaalka Soomaaliya balse aysan cadeyn inta uu la egyahay khasaaraha rasmiga ee halka ay ka geysatay waa Jubbaland oo markaasi sheegtay inay dawladda federaalka ciidamadeedii halka ku daabuleysay ay saakay ka dhigtay mid jiifa iyo mid joogan mid jaban waxa kaloo ay Jubbaland sheegaysaa ama intaas ay sheegashadeeda ku sii dartay in ciidamadeedu ay la wareegeen difaacyadii hore ee Raaskambooni kadib dagaal saakay ka dhacay halkaasi qoraalka Jubbaland ayaa waxa lagu yiri ilaa hadda ciidamada Jubbaland ayaa la wareegay difaacyada hore ee deegaanka Raaskambooni ay kaga jireen maleeshiyaadka ku soo duushay Jubbaland waa maleeshiyaadka ku soo duulay oo ay la jeeday ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya halkaas geysay iyadoo sheegtay Jubbaland iyadoo markaas khasaare kala duwan la gaarsiiyay bay tiri Jubbaland war-saxaafadeedkeeda ku tiri dhinaca kale ma jira war rasmi oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan dagaalka saakay ay guusha ka sheegatay Jubbaland xaaladda ayaa wali kacsan waxaana dhacay ama dhinacyaduba ay helayaan sida la sheegayo gurmadyo dheeraado oo ku sii qulqulaya furinta hore waxayna intaasi si xoojin kartaa baa la leeyahay dagaalka qarxay iyo khasaaraha ka dhalan kara iyo in mar kale halkaasi ay dagaalku ku sii ballaarto dagaalkan waxa uu ku soo aadaya iyadoo horay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu muddo 15 maalmood uu u qabtay ciidamada dawladda ay geysay Raaskambooni haddii ay bixi waayeen uu sheegay in mas'uuliyadeeda ay qaadan doonaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya wararku waxay sheegayaan in dagaalka halkaas ka dhacay ay Jubbaland qaaday in Jubbaland ay weerar ku qaado ciidamadaasi waxa sababtay kadib markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu 15 maalmood u qabtay ciidamada dawladda federaalku ay dhamaatay iyadoo ciidamadii iska daa inay halka ka baxaan federaalku ayba ku hor la keenay dhinaca kale 48 saac ayay dhawaan Jubbaland sheegtay inay u hadhay waqtigii madaxweyne Axmed Madoobe u qabtay ciidamada federaalka muddadaasna ay ka dhamaatay kadibna ay talaabo qaadeen maantay Jubbaland waxa la sheegay inay haysato hub ka fara badan oo ka culus oo ka markaasi saameyn badan kan dawladda federaalka ciidamada ay wataan oo la sheegay in ciidamada dawladda federaalka halkaas la geeyay ay wataan qoryo yar yar qaybtoodna ay markaasi marka laga yimaado dhowr hub oo waaweyn ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay saaki inay ku waabaristeen awood Jubbaland uga timid oo aysan filanayn hub waaweyn oo aysan Jubbaland ka filanayn arrimo kale inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan hadlay uu sheegay ama uu qiray in Jubbaland hubka ay haysato uu yahay mid aan caadi ahayn oo aad u faran oo aad u badan oo kaydadka ugu jira Axmed Madoobe laakiin hadda uu la soo baxay dhinaca kale Jubbaland ayaa hub iyo saarad fara badan ka heshay wadanka Itoobiya oo xilligan ay saaxiib dhow Jubbaland tahay oo ay la xiratay dagaalka saaka dhacay khasaarihiisa aad ayaa la isugu khilaafsan yahay ilaa iyo iminka waxaana la sheegayaa in khasaaraha halkaasi ka dhacay uu aad u fara badan yahay marka loo eego markaasi sida ila waraadiyo kale sida ay markaasi dhinacyaduba ay si hoose oo laga helay ay sheegayaan labada dhinacba waxa la sheegay khasaare kala duwan inuu soo gaaray oo markaasi halkaasi uu ka soo gaaray dhinaca kaleeto Jubbaland iyadu waxay sheegaysaa in dagaalka ay ku guuleysato ay dhulkii oo dhan qabsatay dawladda federaalkuna waxa iyaduna aan war laga hayn laakiin ciidamadeeda oo xiriir la sameeyay qayb kamid ah waxay noo sheegeen inay haystaan oo dhulkii aan waxba laga liqliqin laakiin yaa run sheegaya
runtu waxay noqon doontaa midda soo bixi doonta daqiiqadaha soo socdo oo aynu dadaal ku bixin doona laakiinse waxa ugu weyn ee meesha yaalla waxay tahay in Jubbaland ayadu ay aagaasi doonaysa inay kala wareegto dawladda ciidamadeeduna la sheegay in halkaas aysan dhaafi doonin inay Kismaayo u sii durkaan mooyeena aysan meel kale ka aadayn in dagaal uu dhacayo waa mid la filayay oo loo dhagtaagayo oo la aaminsanaa oo la filayo oo aan iminka laga naxayn sababta ugu weynna waxay ahayd markaad eegto qolo walba halka ay taagan tahay hadallada ay sheegayso oo muujinaya sansaan dagaal iyo colaadeed dagaalka maanta bilaabmay waxa la leeyahay waxa laga yaabaa inuu sii ballaarto oo inta ku istaagin ilaa labada dhinac midkood jabwila gaarsiiyo lagana adkaado marka la eegaba la leeyahay labada ciidan awoodooda ma ahan mid la yareysan karo Jubbaland oo maalmihii ugu dambeeyay la islaha ciidamadeedii oo dhan dhinaca dawladda Soomaaliya u jabeen ayaa cudud aan la milaysanin saaka la soo baxday hubka ay haysato marka la eegaba la leeyahay iyo ciidamada u dagaalamaya waa kuwan caadi ahayn dhinaca kale magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose ayaa iyadana waxa lagu geedaamay ama lagu wareejiyay ciidamo fara badan oo isugu jira kuwa Jubbaland iyo kuwa wadanka Itoobiya si ay u ilaaliyaan amniga madaxweynaha Jubbaland iyo magaalada Kismaayo iyo deegaanada ka agdhowba dagaalkan khasaaraha saaka dhaliyay ee ka dhacay Ras Kamboni waxa la leeyahay waa midkii labada dhinacba midkood halkaasi uu ku dambeyn lahaa ama mid ayaaba ku hari doona haddii ay sidaan xaaladdu ku sii socoto Ras Kamboni oo ah magaalo maalmahanba isha ugu weyn ee wararka ee Soomaaliya ahayd ayaa haatan warku waxa uu sheegayaa in dagaalka saaka dhacay uu yahay mid khasaare geystay oo la filayay dagaalkan waxa uu ka soo bilaabmay kadib markii ciidamada Jubbaland saaka la sheegay in ay halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay meel ku dhow ay ku joogeen ay saaka waa barigi dagaalku ekeeyeen ciidanka federaalku halka iska fadhiya ama iska jooga ayaa ku warhelay rasaas dhan walba uga soo dhacaysa iyo weerar lagu soo qaaday kadib qudhooda ayaa dagaal ugu jawaabay rasaasay muddo dhacaysay kadibna Jubbaland ayaa war soo saartay oo sheegtay inay khasaare weyn gaarsiisay ciidamadii dawladda federaalka Ras Kamboni ay la wareegtay warka sheegaya in Ras Kamboni ay la wareegtay Jubbaland ayaan ilaa iminka cid xaqiijisay run ahaanshihiisa aysan jirin laakiin Jubbaland waxa ay leedahay annaga aamina annaga nagu kalsoonaada Ras Kamboni gacanteeda ku jirtaa dawladda Soomaaliya dhankeeda wali war ma soo saaray laakiin warka ay soo saari kartaa ayaa la sheegayaa inuu noqon doono mid ay Jubbaland eedeyn weyn ay ugu jeedin doonto oo ah inay Jubbaland ciidamadii qaranka oo xuduudii dalka difaacaya oo xuduudka wadanka iyo amnigiisa ilaalinaya oo shaqadoodii waajibkeed haysta inay Jubbaland soo weerartay Axmed Madoobe ayay waxay ku shaambadayn doontaa inuu yahay nin qabqabla dagaal ah oo culujooga oo argagixiso ah oo aan wadankaani nabad u rabin balse waxa ay sheegay doontaa inay ciidamada qaranku ay ku mahadsan yihiin inay isdifaaceen oo ay iska celiyeen Jubbaland ciidamadeedii soo weeraray oo ay ka guuleysteen cadawgii soo weeraray sidaas waa warqadda laga filan kara mar walba inay dawladda Soomaaliya ay ka soo baxdo dhinaca kale maxaa laga filan karaa ciidamada dawladda Soomaaliya oo markii horeba ulboocle ugu qutubayay Jubbaland ayaa waxay dadka badankoodu leeyihiin waxa laga yaabaa inay halkaasi maanta ay ka bilaabatay tilaabada ay ku dagaalgali lahaayeen ilaa iyo Kismaayana yoolkoodu yahay inay tagaan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa mar walba waxa la sheegay inay halkaasi lagu sii daabulayay maalmihii ugu dambeeyay kuwa kale oo fara badan saacadaha soo socday maalmaha soo socda la sii geyn doono Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo safar rabay inuu Ras Kamboni ku tago ayaa la sheegay in uu cabsi ka qabo in la soo rido diyaaradda uu saaran yahay halkaasi ka cabsaday oo aan aadin waxa loo diyaariyay diyaarada korka ka ilaaliya tan uu saaran yahay ciidamo maalmihii ugu dambeeyay ilaaladiisii iyo taliyihii dhulka ayaa halkaasi tagay waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaruhu ugu dambeyn uu ka baqsaday ama uu faraha ka qaaday arinta kadib markii Jubbaland ay hub waaweyn ay hawada u jeedisay si diyaaradaha ay u rido dhawaana ay diyaarad sigtay oo fariici diila ay diyaarad uga baxsatay sida iyaduba ay sheegtay waxaana iminka muuqanaysa in xaaladda guud ee halkaas ay tahay mid adag oo saacad iyo daqiiqad walbana xaaladdu ay noqon doonto mid waxa ka dhalan doonta ay tahay mid aan la mahdin doonin oo ay dad badan ka farxi doonin tan iyo markii uu khilaafka dawladda federaalka iyo Jubbaland bilaabmay xiisadda iyo hadalhayntu waa mid xay ahayd tan ugu weyn ee Soomaaliya
axmed madoobe oo ka dhiga adeegay dalabka iyo doonista xasan sheekh maxamuud ayay arrintaani ka soo bilaamatay waxaana dowladda federaalku doonaysaa inay khasab axmed madoobe ay ku tiraahdo waxaanu doonaynaa aqbal haddii kale xukunkayna kaa tuuraynaa laakiin axmed madoobe ayaa waxa uu leeyahay hortiin ayaa layga quustay adinkuna waxba igama qaadi kartaa waan isdifaacina ninkaad wax ka qaadi kartiin iyo halkaad soo taaban kartiinba soo taabta xaalku waa jugjug meeshaada joog dagaalka saakay dhacana waxa uu muujinayaa ififaalo xun iyo saansaan colaadeed oo ka sii dari karta waa maasantihiin muuqaalkan ilaa halkaad baa nala soo gaaray dhammaadka laygaree sheergaree subscribe na saar nabadgelyo